War-saxaafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha waqtigu uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iclaamiyay shir kale oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 Maarso 2021 martigeliyay munaasabad lagu dhammaystiray dadaalkii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraalka. Kulankan oo hal maalin soconaya wuxuu ku qabsoomayaa magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraalka. Waxaa looga gol leeyahay kulankan in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii guddiga farsamo doorashada ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15 ilaa 16 Febraayo ee sanadkan, ka oo xal looga gaaray tabashooyin ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebtembar 2020 ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo. Ugu dambeyn, qoraalkan waxaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay ahmiyad weyn siinaysaa hirgelinta doorasho hufan oo jawi nabdoon ku qabsoonta. Horey waxaa u fashilmay shir uu sidan oo kale u iclaamiyay madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday ee Mudane Farmaajo, waxaana shirkaasi si cad u diiday Axmedoobe iyo Saciid Dani iyagoo ka qaybgalkiisa ku xiray dhowr shuruudood. Ilaa hadda ma cadda in Villa Soomaaliya ay aqbashay shuruudihii labadaasi madaxweyne, lamana oga inay ka soo qaybgali doonaan shirkan. Waxaa sii socda dadaallo xoog leh oo beesha caalamka ay isugu keenayso madaxda Soomaalida si heshiis looga wada gaaro doorashada dalka.